waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno Maraykanka iyo Ingiriiska oo arbacadii xalay askar lagaga laayay dalka Ciraaq iyo duqeyn loo malaynayo inay Maraykanku geysteen oo lagu dilay 18 ka mid ah maleeshiyaadka Shiicada Ciraaq oo ku sugnaa bariga dalka Suuriya. qodobo kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka. ugu yaraan 2 askari oo Maraykana oo mid ka mid yahay hawlgab yahay iyo askari Ingiriisa ayaa habeennimadii arbacada lagu dilay saldhig ciidamada Maraykanku ku leeyihiin waqooyiga magaalada Baghdad kaasoo lagu weeraray gantaalaha garabka laga tuuro ee aynu baasuukaha u naqaano. isla weerarkaana waxaa lagu dhaawacay 12 askari oo kale oo ka tirsan isla ciidamada isbahaysiga military ee Maraykanku hogaamiyo ee la dagaalama ururka Daesh sida uu xaqiijiyay mas'uul ciidan Maraykani. weerarkan oo lala beegsaday saldhigga Taaji ee duleedka magaalada Baghdad ayaa noqonaya kii 22aad ee noociisa ee tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore lagu qaado saldhigyo ay ciidamo Maraykani ku sugan yihiin gudaha Ciraaq. laakiin weerarkan waa kii ugu khasaaraha badnaa. ma jiro dhinac sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi, laakiin Maraykanku waxay mar walba weerarada noocaas ku eedeynayeen kooxaha hubaysan ee Shiicada reer Ciraaq ee ay Iiraan taageerto. dhanka kalena 18 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka Shiicada Ciraaq ayaa lagu dilay weerar goor dambe oo arbacadii caawa oo lagu duqeeyay fadhiisimo ciidan oo ay maleeshiyaadkaasi ku lahaayeen bariga dalka Suuriya. sarkaal u hadlay hay'adda xuquuqul insaanka Suuriya ayaa sheegay in 18 ka mid ah maleeshiyaadka Shiicada Ciraaq lagu dilay duqeyn lala beegsaday rug ciidan oo ay ka deganayeen bariga Suuriya meel aan sidaaba uga fogeyn xuduudda Ciraaq. sarkaalka xuquuqul insaanku waxa uu sheegay in diyaarado aan jihada laga lahaa la cadayn ay duqeeyeen bariga magaalada Bookma ee waddanka Suuriya oo dhacda xuduudda uu dalkaasi la leeyahay dalka Ciraaq. laakiin sarkaal dhanka sirdoonka aan magaciisa la shaacin oo ay soo xigtay jariirada Qudus al-Carabi ee ka soo baxda magaalada London waxa uu sheegay in maleeshiyaadka Shiicada Ciraaq ay had iyo jeer adeegsadaan marin xuduudeedka Bookmaal kuwaasoo taakula ciidan ka qaada gudaha Ciraaq oo geeya Suuriya si ay ugu gacan siiyaan ciidamada xukuumadda Suuriya. weerarada khasaaraha geystay ee lagu weeraray ciidamada xulafada Maraykanku hogaamiyay ee Ciraaq ku sugan iyo maleeshiyaadka Shiicada Ciraaq ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli golaha Koongareeska ee dalka Maraykanku arbacadii sharciyeeyay go'aanka lagaga xanibayo Donald Trump inuu fal military ka qaado Jamhuuriyadda Iiraan. go'aankan oo ay golaha Koongareesku cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen ayaa ka hor istaagaya madaxweyne Trump inuu fal cadaawad dhalin kara ula tago Jamhuuriyadda Iiraan mar haddii aanu falkaasi ahayn mid uu Koongareesku ansixiyay. nuqul ka mid ah go'aankooda ayay Koongareesku u direen madaxweynaha Maraykanka, waxaase in badan oo arrimaha dalka Maraykanka la socodsiy aaminsan yihiin inuu Trump kaga hor iman doono go'aanka awoodda fiitooda ee madaxweynuhu xaqa u leeyahay inuu ku hor istaago go'aamada golaha Koongareeska ee aanay soo ansixin tiro u dhiganta 3 dalool oo 2 dalool. go'aanka maanta oo ay wax ka ansixiyeen 6 ka mid ah xildhibaanada golaha Koongareeska ee ka soo jeeda xisbiga madaxweynaha ee Jamhuurigu ayaa mooshinkiisa la soo hordhigay golaha bartamihii bishii January ee sanadkan, xilligaas oo ku beegnaa waqti yar ka bacdi markii ay Maraykanka iyo Iiraan si toos ah isugu gacan qaadeen kadib markii isagoo aan la socodsiin Koongareeska uu Donald Trump xilligaa amray in la dilo jenaraal ka tirsanaa dowladda Iiraan. taasina ay keentay inay Iiraan la gantaalo ku garaacdo saldhigyo ku yaala Ciraaq oo ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykana. waana xilli uu dalka Maraykanku la tabaalaysan yahay waxyeelada fayraska corona oo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba uu waxyeello u gaarsiiyey, iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayana ku dhawaaqday in fiditaanka cudurka corona loo aqoonsaday cudur heer caalami u faafaya. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kulan uu arbacadii aqalka cad kula kulmay madaxda bangiyada waaweyn ee dalka Maraykanka waxa uu ka sheegay inuu ummadda Maraykanka u jeedinayo khudbad uu kaga hadli doono dhibaatada corona iyo qorshaha uu kaga hortagi doono. ugu yaraan 1200 oo qof ayaa cudurka corona ku dhacay gudaha dalka Maraykanka tan iyo xalay arbacadii. Thank you very much, and we are having a meeting, a very important meeting with I would say the greatest bankers in the world, the most important banks in the world, financial centers, and having a good discussion. We're discussing the economy, we're discussing how it relates to
the jobs and all of the things that are happening right now with the virus that we've become so familiar with. I'll be making some decisions. I've already made some decisions actually today, but I'll be making some other ones that are very important. And I thought I'd let the press in to hear some of the wisdom from the folks in the room. And maybe, Brian, I'll start with you. And Brian's the chairman, and he's the man at Bank of America. Highly respected. Everybody in this room is at the highest level, highly respected. Brian, please.